عايدة شريف buuggeeda rubuc qarni waxay u soo joogtay shaahidatu rubuc qarnina oo ay kaga faallootay taariikhda qaar ka mid ah qoraayadii dalka Masar. waxay ku sheegteen raggii qoraayada ahaa ee haweenka ajnabiga ah guursaday badankoodu aysan ilmo dhalin, sida awgeedna ay weheshan jireen xayawaanaadka la rabaysto sida bisadaha iyo iida. caayida intaa waxay ku dartay in dhammaan qoraayadii masaarida ahaa ee dumarka ajnabiga ah guursaday marka laga reebo Dr. Taha Hussein ay ka sinaayeen in aroorta ay xaasaskooda qaxwaha u karin jireen. sababta Taha Hussein uu qaxwo karinta uga badbaadayna waxay ku sheegtay in dhalaantiisa uusan dabka iyo alaabta u jeedin. dooda caayida iyo kuwa la midka ah waxaan xasuustaa marka aan arko cid si aan macquul ahayn wax u camimaysa. maxaa yeelay qoraayadii masaarida ahaa ee haweenka ajnabiga ah guursaday aad bay u badnaayeen, isku meel iyo isku waqtina ma noolayn. caadi ahaan xogta lamaanayaashu ma aha arrin si fudud lagu ogaan karo. xalkuna wuxuu sii adkaanaya marka xogta la raadinaya ay khusayso dad fara badan oo kala shakhsiyado iyo duruufo gedisan. sidee lagu ogaan karaa in dhammaan raggaas ay xaasaskooda qaxwaha u karin jireen? dooda caayido waxaa hadda isoo xasuusiyey buugga lagu magacaabo iimaanka aabilaawaha psychologiyada ilhaadka, Fate of Fatherless, The Psychology of Atheism, nafsiyatul ilhaad iimaanu faaqid al-ab ee uu qoray Dr. Paul C. Vites. Dr. Vites waxa uu ku doodayay in dadka mulxidiinta ah ee eebadiidani aysan haysan sababo caqli ka lahayo iskadaan diidmada Alle, balse alla diidmadooda ay ku salaysan tahay sababo xagga nafsada ah oo aabila'aantu ugu muhiimsan tahay. qoraagu wuxuu sheegayaa in uu ilhaadku yahay jiro xagga nafsada ah oo ka dhalata waxa uu ugu yeeray aabe in leh defective father. eray bixinta aabaha ee ladaysan waxaa soo hoosgelaya aabaha dhintay, kan maqan, kan ubadka sida xun la dhaqma iyo kan daciifka ah ee ku fashilma inuu kasoo baxo kaalinka aabanimo. sida la ogyahayna dadka haysta diinta masiixiga eebe waxay ugu yeeraan aabe iyo aabaha samada. qoraagu wuxuu ku andacoonayaa in mulxidiinta jiritaanka eebe inkirsanay ay aabe la'aan yihiin, oo aabahoodu maqan yahay ama daciif yahay ama uu in kale leeyahay, halka mu'miniintu ay aabayaal wanaagsan ku akoraan. wuxuu xusayaa magacyada 29 qof oo uu ku tilmaamay inay yihiin aabayaasha fikirka ilhaadka ama alla diidka. wuxuuna ku doodayaa in dhammaantood ay wadaagaan arrin ah in aabayaashood in lahaayeen. wuxuuna soo xiganayaa dhacdooyin iyo weerar lagu xusay taariikh nololeedkooda. dadka uu magacyadooda xusay waxaa ka mid ah Thomas Hobbes, David, Voltaire, Baron Dolbeck, Schopenhauer, Ludwig, Sigmund Freud, Rosel, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Madeleine Mori, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong iyo qaar kale. aadanaha garaadka lihi tan iyo muddo fog buu ku baraarugsanaa raadka taban ee maqnaanta aabuhu ilmaha ku leedahay. mas'alada halkan laga doodayaana ma aha maqnaanta aabuhu ilmaha saameyn xun ma ku leedahay mise kuma laha. sidoo kale doodu ma aha in aabe la'aantu ay xaaladaha qaarkood keeni karto eebe la'aan, balse doodu waxay tahay maqnaanta aabuhu ma tahay sababta ugu mudan ee keenta alla diidmada mise ma aha. waxaa xusid mudan in dadka baaritaanka lagu xusay ay tiradoodu yar tahay, si gaar ahna loo xushay non-random, isla markaana ay ku kooban tahay deegaan gaar ah wadamada galbeedka ee Yurub iyo Mareykanka. sidaas oo ay tahay haddana dhaliilahaas iyo kuwo kale u jiraaba baaritaanka kama dhigayaan mid aan qiimo lahayn, waayo ugu yaraan waa isku day mowduuca xagal cusub laga eegayo. qarnigii 19aad Yurub weli nolosha xoogeedu wuxuu ku xidhnaa diinta, oo fursadaha waxbarashada iyo shaqada badankooda waxaa bixin jiray kaniisadaha, waxaana go'aamin jiray wadaadada kaniisadu waxay saameyn weyn ku lahaayeen xukuumadaha, qawaaniinta iyo siyaasadda. waxay lahaayeen awood ay ku xakameeyaan sayniska kulana diriraan isbedelka afkaarta bulshada. iyada oo xaalku uu sidaa yahay baa waxaa soo baxay filosof la odhan jiray George Hegel, noolaana 1770 ilaa 1831. Hegel oo dhalinyaro badan macallin u ahaa waxa uu ku dooday in taariikhda dunidu ay ka dhalato loolanka ka dhaxeeya afkaarta iyo bulshada. isbedelka afkaarta ku dhacaana uu keeno isbedelka iyo horumarka bulshada. aragtida Hegel waxay soo jiidatay dhalinyaro badan oo ay ku abuurtay rajo ah in timaadadu ay dhaami doonto tagtada. maxaa yeelay nuxurka aragtidu waa inay umuuruhu si joogto ah isu bedelayaan, horumarna u sameynayaan. dhalinyaradii la dhacday afkaarta Hegel waxaa ka mid ahaa arday la odhan jiray Ludwig Feuerbach, noolaana 1804 ilaa 1872, oo isaguna kulkiisa dhalinyaro badan macallin u noqday. Feuerbach dabshidkii 1841 wuxuu qoray buug uu cinwaan uga dhigay ruuxda masiixiyadda, The Essence of Christianity, jawharul masiixiyya.
Feuerbach wuxuu sharaxaad ka bixiyay sida diinta masiixiyadda ay isu bedeshay iyo saameynta gadgadoonka waayaha duruufuhu ay ku lahaayeen. hadalkiisana wuxuu kusoo gunaanaday diintu waa riyada maanka aadamiga. Religion is the dream of human mind. Feuerbach wuxuu ku dooday in diintu ay tahay aalad bulshada lagu xakameeyo, wuxuuna tusaale u soo qaatay sidii xaalku u noqday burburkii imbaradoriyadii Roomaanka kadib. wuxuuna yiri kolkii ay burburtay imbaradoriyadii Roomaanku awoodda ayaa meel cidla ah kusoo dhacday. halkaasna waxaa fursad ka heshay kaniisadda oo buuxisay kaalinkii dowladda. kaniisaddu waxay u muujisay sidii inuu yahay imbarador carshiga ku dangiiga, duni aysan ka jirin booliis, maxkamado iyo xabsiyo macno lehina waxaa lagu waashay ka hadalka jannada iyo naarta. diinta masiixiyadduna halkii ay ka ahayd caqiidad dad yar ay rumaysan yihiin, waxay ka noqotay dowlad awood badan oo if iyo aakhiraba ka arrimisa. wuxuu yiri waayahaas dhalanteedka oo keli ah baa muqadas ahaa, xaqiiqaduna nijaas bay ahayd, waa xumayd. In these days illusion only sacred, truth prevails. Feuerbach gadaashiis waxaa yimid Sigmund Freud, noolaana 1856 ilaa 1939 oo lagu tiriyo asaasaha cilmi nafsiga casriga ah, isla markaana qoray dhigaalo dhowr ah oo uga hadlay diimaha iyo jiritaanka Eebe. dhigaaladaas waxaa ka mid ah ficilada hanashada iyo dhaqamada diinta, obsessive actions and religious practices, mustaqbalka ismoodsiiska, the future of an illusion, mustaqbalul wahm, totemka iyo looma dhawaadaanka, totem and taboo, الضوضم والمحرمات، موسى iyo tawxiidka, Moses and monotheism, Musa wa tawxiid iyo ilbaxnimada yaqaan calaanteeda, civilization and its discontents, qalaqun fi الحضارة. Freud wuxuu ku dooday in diintu ay tahay jiro nafta aadamaha ku dhacda, wuxuuna sheegay in dadku ay nolosha culays kala kulmaan, diintuna ay tahay qaab ay isaga caabiyaan culayska iyo xanuunka nolosha adduunka. dadku diinta waxay ka helaan ammaan iyo raaxo, waayo waxay sawirtaan jiritaanka Eebe, aqoon, awood iyo naxariis badan oo samada ku sugan, kaas oo u ilaalinaya sida aabaha turida badani uu ubadkiisa dhibka iyo waxyeelada uga ilaaliyo. Freud isagoo adeegsanaya aragtida loo yaqaan aragtida ku gedinta, projection theory, nadariyatul isqaad, ayaa wuxuu yiri dadku diinta waxay u hindiseen si ay naftooda uga difaacaan gacanta sare ee dabeecadda, oo sida ilmuhu ugu baahan yahay aabe difaaca ayay waxay ugu baahdeen Eebe ka difaaca waxyeelada dabeecadda. sida ay la tahay alle iyo diimuhu ma aha wax la cadeyn karo ama la deedifadeyn karo, waayo caqli iyo khibrad midna laguma ogaado, waxay ku dhisan tahay abdada dadka. wish fulfillment. diintu waa nooc riyada ka mid ah. riyadu maxay tahay? riyadu waa xeelad noo suura gelisa damaca ay nagu adkaato in aan dhab ahaan u samayno. marka barbaarku uu ku riyoonayo gabadha qalanjada ah ee gogosha kula jiifta, ama gabadhu ay ku riyoonayso barbaarka amiirka ah ee dhiilsiinaya isagoo ku haya hadhicin ha kufin, waxay riyada uga dhabeynayaan damacmaankooda ka guuxaya si aanu suuroobin. fikradaha iyo tusaalooyinka badan ee Sigmund Freud uu adeegsaday xoojinta bareerihiisa waxaa ka mid ah fikradda loo yaqaano cuqdada Oediip, Oedipus complex. cuqdada Oediip asal ahaanna sheekada Oediip waxay ka mid ahayd sheeko xiriiro hore ee Greek, laakiin Freud wuxuu siiyay macno cusub oo oranaya 7 hore oo aad u fog ayaa wiilashu waxay dareen galmo u qaadeen hooyadood, laakiin cabsida ay ka qabeen aabahood baa u diiday inay la xiriiraan hooyadood. si ay caqabadaasi isu dhaafiyaan darteedna waxay dileen aabahood. kolkii ay odayga dileenna waxay dareemeen dembi, waxayna isku dayeen inay saxaan dembiga ay galeen, waxayna bilaabeen inay qadisaan oo ay weyneeyaan aabahood. laakiin maadaama uu geeriyooday uma ay soo roobin nacaabda, taa awgeedna waxay hindiseen aabe samada jooga oo samaha la jecel, xumahana la neceb. dabadeed aabaha samada ku sugan ee jecel gaalada uu qabo mid la mid ah bay u qaadeen, waxayna bilaabeen inay caabudaan oo ay tukadaan, waxna u sadaqeeyaan. sidaana waxaa ku urtay fikradaha alle iyo diimaha, waxaana faafay sheeko xiriiraha diiniga ah ee dadku ay falkiyeen, dabadeedna ay rumaysteen. Freud si cad uguma doodayo in diimuhu ay been yihiin, laakiin wuxuu ku adkaysanayaa inay yihiin wax aan laga salgaari karin xaqiiqadooda. isla jeerkaasna waxa uu qabaa in dhinacyada qaarkood ay bulshada waxtar uga yeelan karaan, oo ay ka qayb qaadan karaan isku xidhnaanta iyo kala dambeynta bulshada. wuxuuna qabaa in qofka aadamiga ahi uu yahay anaani caarkiisa iyo calooshiisa la ciyaara, uusan baad reebayn haddii aan loo helin qaabab ay diimuhu ka mid yihiin oo lagu xakameeyo damiciisa waalan. dadka la dhacsan afkaarta Freud waxay qabaan in mustaqbalka diimaha loogu xoroobi doono si la mid ah sida ilmaha yari ay waalidkood uga weynaadaan. dabcan Freud kolkii uu ka hadlayay alle iyo diimaha waxa maankiisa ku jiray diimaha Ibraahimiga ah, Yahuudiyadda, Masiixiyadda iyo Islaamka ee uu wax ka yaqaan.
haddii uu xisaabta ku darsan lahaa diimaha ay ka midka yihiin hinduusiyadda, buudiyadda iyo taawiyadda oo aan lahayn hal ilaah oo shakhsi ah, doodiisu intaa waa ka baaxad weynaan lahayd. fikradihii Freud qayb ka mid ah waa laga gudbay, qayb kalena baaritaano baa ku socda. laakiin sidaas ay tahay haddana weydiimihii waaweynaa uu iska weydiiyey diimaha iyo nafta aadanuhu weli waa taagan yihiin oo dood baa ka furan. sida muuqatana buuggan iimaanka bilowga psychologiyada ilhaadka waa isku day uu qoraagu ku doonayay inuu ku qiimo tiro dooda ilaah diidmada, si lamid ah sidii uu Freud isugu dayay inuu macno tiro rumaynta Eebe, halkii Freud uu kaga dooday in diimuhu ay ka curteen xanuun xagga dhimirka iyo nafsadda ah, ayaa Fitas waxa uu kaga doodayay in mulxidiintu ay nafsada ahaan u jiran yihiin. laakiin su-aashu waxay tahay, ilaa xadkee buu taa ku guulaystay? aragtida Freud ee laamaha badanna lagu burin karaa dood u fudud sida midda Paul Fitas. qof ahaan waxaan isweydiiyey, haddii uu jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya joogitaanka aabaha iyo alla jacaylka ama maqnaanta aabaha iyo ilaah diidmadu, sidee buu noqon lahaa iimaanka ambiyadu? waayo buugta diimuhu waxay noo sheegeen inay jireen nebiyo badan oo aan aabahood la noolaan ama xiriirkoodu cilad lahaa. tusaale ahaan Nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa agoon aabihiisu dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira. Nebi Ciise aabihii dood baa ka jirta. Nebi Isxaaq ama Nebi Ismaaciil aabihii ayaa damcay inuu gowraco. Nebi Yuusuf waxaa korsaday ninka afdhalasho iyo diin duwanaa. Nebi Muuse wuxuu ku koray gurigii Fircoonkii Masar oo ka diin duwanaa. waxaa xusid mudan inay jiraan aqoon-yahano uu ka mid yahay Sigmund Freud oo rumaysan Nebi Muuse uusan ahayn Yahuudi, balse uu ahaa Masri aqoon fiican u leh diinta Masaarida, uuna ka mid ahaa dadkii taageeray kacdoonkii amiirkii Masriga ahaa ee Akhenaton. diinta tawxiidiga ah ee uu la yimidna ay tahay isla midii uu ku baaqay amiir Akhenaton oo isku dayay inuu mideeyo ilaahyadii Masaarida ee hore. aqoon-yahanadani waxay qabaan in qisada Nebi Muuse xoogeedu ay tahay sheeko waa dambe ay Yuhuud u alifeen si ay ugu bilaan taariikhda qowmiyadooda. Paul Fitas kama uusan hadlin mas'alada ku saabsan jiritaanka Eebe, wuxuuna sheegay in cilmiga uu ku takhasusay ee cilmi nafsigu uusan ahayn cilmi ku habboon falanqaynta dooda la xiriirta jiritaanka iyo jiritaan la'aanta Eebe. akhristahana wuxuu kula taliyay in haddii uu doonayo dooda noocaas ah inuu ka raadiyo dhigaalada falsafada, caqiidada, sayniska, taariikhda iyo takhasusaadka kale ee mawaadiicdaas xiriirka la leh. laakiin sida runta ah, taladaasi ma aha mid waxtar u leh akhristaha, ee waa xeelad uu qoraagu akhristaha ku marin habaabinayo, isagana leexinayo culayska mas'uuliyadda. waayo culumtaas uu tilmaamayo oo dhami kuma uu jiro mid qura oo ku guulaysan kara inuu akhristaha si buuxda uga qanciyo mas'alada jiritaanka Eebe. cilmiga diiniga ah iyo kan maadiga ah midkoodna ma awoodo in uu si cad u sugo jiritaanka Eebe ama uu si buuxda u beeniyo jiritaankiisa. Eebe ma aha walax la qeexi karo, waayo ma jirto cid Eebe aragtay oo aqoon gaar ah u leh. filosoofkii Shiinayska ahaa ee Liu Tzu oo la sheegay inuu ahaa kan qoray buugga Shiinaha muqadaska u ah ee Tao Te Ching, buugga wadada ama dariiqada, The Book of the Way, ayaa isagoo alla tilmaamayay wuxuu yiri, magaciisa ma aqaan, sidaas oo ay tahay marka la igu dirqiyay inaan magacaabo waxaan ugu yeeraa Tao, kolka la igu khasbay inaan tilmaamana waxaan ugu yeeraa Weyne. ambiyada, awliyada iyo dadka kuwa ugu iimaanka badan ee Eebe kama bixin karaan xog intaas dhaafsiisan. ruuxii Eebe kaaga sheega wax intaas ka badani waa damiin hadal tirahaya ama waa danaysta adiga damiinku arka. Fitas wuxuu sheegay in dhalinyaranimadiisii uu isu muujin jiray sida inuu mulxid yahay, laakiin mulxidnimadiisu aysan ka dhalan aabe la'aan, balse ay ka dhalatay isagoo rabay inuu saaxiibadii u ekaado iyo inuu horumariyo fursadaha shaqo ee mustaqbalka heli karo. intaa wuxuu raaciyay in xiriirkii wanaagsanaa ee Eebihii kala dhexeeyay uu ugu dambeyntii ku bixiyay inuu noqdo Catholic iimaankiisu wanaagsan yahay. laakiin weydiin meesha ku jirta oo akhristayaal badan ay isweydiin karaan baa waxay tahay, haddii qoraagu uu shalay dana adduunyo dartood uu mulxid u noqday, maxaa diidaya in sababta uu hadda mu'minka u noqday inay tahay isla danihii adduunyo ee uu shalay ilhaadka ka arkay inuu haddana iimaanka uga jeedo. nin Soomaali ah baa hadda ka hor wuxuu iiga sheekeeyey qiso uu sidaan u dhigay. aniga oo Sacuudiga jooga baa waxaa la ii sheegay in nin aan qaraabanahay uu ka tegay shaqadii shirkad uu shaqayn jiray oo uu noqday wadaad waqtigiisa geliya dacwadda iyo faafinta diinta Islaamka. raggii warka ii sheegay baan waxaan ku iri, war hebel aniga ayuu in adeerka yahay oo idinka badiya diinta iyo doolarkana kan dambe ayuu jecel yahay. markaa warka aad ii sheegaysaan ma aha mid igelayay maad sida wuxuu jiraan ii sheegtaan. raggii waxay ku adkaysteen in xogta ay arrinka ka hayaan intaa yahay. ha yeeshee maalmo kadib ayaan waxaan arkay nin kale oo ii sheegay in shaqada cusub ee dacwadda lagu sheegay ay in adeerkay uga dhaqaale badan tahay, ugana hawlyar tahay midii hore uu ka shaqayn jiray.
jeerkaas baan iri haddaan hooyaa sidaa iga dheh marka xaalka Dr. Fitas amuu la mid yahay xaalka wadaadkaas Soomaaliyeed.